ciidanka saddexaad waa ciidankii ka soo socday Anadol Turkiya xaggeeda sare waa ciidanku Bijo ninkii la yiraahdo hogaaminayay waxa la amray 1000 kiiloomitir intuu soo jaro inay isku waqti soo galaan magaalada Baghdad taariikhyahanadu waxyaabaha cajiibka ay sheegaan waxa ka mid ah 1000 kiiloomitir ciidan socda oo dhul socda oo diyaarada iyo wax ilaalinaya aanay jirin ama wadada uu hagaajinaya aanay jirin oo aan la kulmin wax kamiina wax dhul jiifa wax meel u galay waxba aan la kulmin oo 1000 kiiloomitir ba dawladda islaamiga ay degan yihiin oo haddana socodka dheeraynayo isku dayay nimanka Hamadan ka dhaqaaqay inuu kula tago isku waqti magaalada Baghdad oo kula tago isla markaasi ma jiro muwaasalaadkan hadda cusubada telefoon iyo taariya wax lagu wada hadlayo farda wata la rabo fardihiisaasi inay mar la galaan Baghdad ciidamada dhanka ka soo socda laakiin dhulka uu marayo waa salaajaqadii aan sheegayay Mosul buu soo maray oo odaygii Badruddin Lu'lu ciidanka soo diray oo haystay waa oday 80 jir ah taariikhyahanada qaarkood baa waxay dhaawaa 100 jir aakhiru sii jeeda haddana gaaladu daba socdaa uu gargaaraya Baghdad markii la qabsaday 3 bilood kadib baa filayaa buu dhintay kani Badruddin kani maca dalika aakhirada ciidama xasuusnay tataarka Allah arka xagga tataarku kaga jira magaalada Baghdad waa magaalo leh qalcaad xusuun tiro badan oo adag oo ku wareegsan waa magaalo 5 qarni dawladdan ay ka talinaysay waa magaalo uu joogo khaliifkii 700aad baa jooga oo boqorkii 700aad ee muslima ayaa ka talinaya laakiin dhufaysyada iyo hubka iyo xusuunta haday rag waayaan haba ma tara almusta'sim billah waa nin noloshiisa marka la eega bay leeyihiin nin fiican quraanka akhrista ay leeyihiin caqiidatu salaf buu haystay cibaadaadka ku fiican faqarada wax siiya laakiin waxaasi waa naftiisa ummadda wixii aan ficilha muu hayo ummadda waxa anfaca qaa'id soo jeeda dunida waxa ka socda garanaya balaayooyinka ku xiiran ka fakaraya taktiik fahamsan iyo qaab uu diyaar garo kaas anfacaya dadka ولذلك ابن كثير مركو نكن كورمي وحليه كان حسن الصورة ننقرح بدن بوها بويري جيد الصريرة تاريخ دي سيالابتي سيادو في عنتهي صحيح العقيدة عقيدة في عن مقتديا بأبيه المستنصر بالله في العدل أبيه كضيري حق عدالته صدق بدن علماء الشرفة يدتك عبادة مذهب السلف السني يكسغن لكن مذهب السلف إن وحلا يسكع اليابا كشرتي حق أنون عبادة دي ينتبه كسغنا يا باب كي الله با هناك كما سغناي غافل عن السياسة بها بين هذا وضعي waxa ka socdana si fiican uma garanaynin ragga sida loo kala doortana si fiican uma garanaynin raga ba joogay oo kamid yahay adeerkii al-Khafaji ninkii loo oran jiray oo kamid yahay rag badan oo raga jiray laakiin ragga ahaa waa la durkiyay Mujahiduddin Aybak ba kamida Mujahiduddin Aybak iyo Muayyuddin al-Alqami colbay ahaayeen kan shiiciga aba kar loo soo qaaday kan kale waa la durkiyay إذن مو لهين أركتي سياسي ودير مو لهين كفاءة قيادية سيدا الدكتور راغب السرجاني لي مو لهين همك الرئيسة مو لهين جيسي نمدي قرار هذا اللقو قادن لها وقتك كان أدق مو لهين بولي كرسمه وبهنين ومدى أروريه وددكو اياك شوغان مو لهين بولي هي رقا سيدا الله ميدا أما الله دورتا أما الله حشو 16 سنوات وإن لقد ديار قروبة وياهي أنتو بقرك هوا 16 سنوات وسنة كيسي تضبي طبنات إن لقد ديار قروبة وياهي مصدعين هو كاسكرتي سي بيرلي ده كده جايو سناعين ما هيكو جب ودي مركه ومضح ومضنا أن ديار قرينين كرسي أنا أنك كعينين وكوا ما أنت تشوجو قفكوا حيهيد أما إنه شقده وقضه أما إنه بنيو عتك له وقوم كرتتجو
أنا فردينيا وإحنا طري مايو قاعدة دابي شوكتي رجو دورتي وأكون خيامين إياه نيكا كان كل بوتجيه مقالة بغداد 6 مليون وقف باتشوقة علماء الدنيا ده وقلت رب ضم بين وراك الرنابات دقن وأردل راحوا علوم نظرية رب ضم الله وحي مقلين وحي أفغانستان كدعي وحي مذابح كدعي وحي دولة الخوارزمية كدعي وحي مسلم لله هنا وحكتران داي يجا بكلا قيب قلي مرر كقاركوت سيد الشيء دولة الخوارزمية سيد اللغة تخلص لها ما دام يباي كا تطارك كو عاوية أنا لقى تخلصه إيانا كوياك شوقي با وحي كو عاوية إني يجا لقى تخلصه محرم لبيه طبعا مركا يا هيد لح بقول إيا اللحية كنت كي هجرية ده وصنت كي لح بقول إيا اللحية كنت كي هجرية ده بشي كوادة محرمة لبيه طبعا كيدي مركا مريسي أيوم با waxa la arkay dhanka bari ee magaalada Baghdad isagoo ciidamadii hoolaku ay taagan yihiin oo uu bilaabay inuu dhigto madaafiicdiisii wixii gaalmi lahaa dhanka koonfur barina koonfur yani bariga oo koonfurta raacsiisanna katab qaaba ka soo galay markaas uu boqorku hambaabiray dabeetana ijtimaac taari ah kulan degdega ayuu qabtay kulankii degdega ah baa laga wada hadlay kulanka qolo waxay leedahay aan la heshiin oo isdiibno oo nabadgelyo arrinta ku dhamayno waa fariiq uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihi wadanku Mu'ayyid al-Alqami laba nin oo kale nin la yiraahdo Mujaahidiin Aybak iyana la yiraahdo Suleymaan Shaahna waxay leeyeen ruuxaas wax lagu hadla maaha aan jihaadana wax iska celino oo ciidana nabad waxay nagu siin maysee aan difaactano dagaalano muddo ra'yigii markii la rogrogay boqorku maadaama nin iska niyad fiican aha kuwan jihaadka sheegay buu iska raacay wuxuu yidhi waa yaa wax iska celino dabeetana Mujaahidiin Aybak iyo ninkii la socday Suleymaan Shaah baa la yidhi ciidan diyaariya nimankii markay ciidankii diyaar garoobeen oo xaggan xusuunta ay ka samaysan tahay iyo qoladan in laga hortago loo diyaar garoobayo ayaaba war yimi laleeyay alambaar baa la maraya ciidankii Yurub ka soo galay isna halka maraya meeshan ambaar imka la yiraahdo Ciraaq ayuu maraya waa meel aad u dhow aan waxba u jirin waana dhul bannaan oo dabeetana waxa la yidhi waxoogaagii ciidankee la ururiyey war bal qolada waajaha Mujaahidiin uu soo baxay isagoo ciidankiisii wata wuxuu ka hortagay Bijo iyo ciidamadii dhankan Yurub ka soo galay ee 1,000 kiiloomitir soo socday ayuu ka hortagay laakiin nasiib darro trainingku hadaanu fiicnayn oo si fiican taktiigi military waa laga tira badiyay waa uu tallaabay wabigii bay yana ka soo tallaabeen meel dhoobo oo mustanqacaat oo biyo fadhiisin oo xagga shisha looga maray sidii wax jabay baa la isaga dhigay ciidankiisii wuu soo eriyay oo kooxdii bay ka daba yimaadeen injineero ciidanka la socday Bijo wato ayuu diray xagga dambe ka wareegeen biyo xidheennadii ku xidhnaa meesha waa la faruuray oo biyii waa la soo daayay si wadankan oo dhan dhooba ay uga dhigaan jusuurtii meelihii laga tallaabayayna waa la jabiyey markii ciidankii tamdiya maxaa la yidhaahdaa taakulayntii oo dhan laga jaray xagga dambe webigii la faruuray ayuu ciidamadiisii ku soo jeestay dhoobo iyo meel aan farasba ordin la limanayo ayay joogaan gamtaa loo joogsaday Mujaahidiin Aybak iyo in yaroo la socotay mooyaane ciidankana waa laga takhalusay dib ay u soo noqdeen iyagoo firdhaday Baghdad soo galeen iyadoo waxoogaagii ciidankee la ururiyeyna Bijo uu badda ku cabay ka soo takhalusay waa ciidan goobta lagu dagaalamayo dhulkiisii ay tahay oo haddana looga aqoon bato lagu khiyaameeyey waa dhulkiisii waa Ciraaq gudaheeda lagu dagaalamaya laakiin waa looga taktiiki badiyey dabeetana iyagii baa meesha ku jabay Baghdad buu soo galay
وسقالية طبعا كي محرم بدقال كان داعية بيجو أيها هرو صو صعدي السنة دنك وغويجة أي مقالة دي بغداد كصو فرست مقالة بغداد مركا هدا وحكو حيران صدح دي عيدان يوي حي وتين هولاكو وبري شوغا كتبغى وكونفور بري شوغا يو وغويجة أو شوغو نك الله يدادا بيجو جلسة لباد بالله فرستي ابن العلقمي markii mujaahidiin ayba kiyo kooxdiisina ay soo jabtay boqorkiiba ku noqday wuxuu leeyahay kama maaranno diblomaasiyada inaynu haatan bilowno isticmaalno طاولة المفاوضات miiska wada hadalka aan tagno war kale ma yaalo laakiin miiska wada hadalka yaa wada hadla taariikhda bini aadamka mufaawadaadku yay dhex maraan laba nin oo xoogan hadday mufaawadaad dhex maraan wax aqliga gala ka soo baxa لكن مسكين ينن مرغي حوجنا هدي مفاوضات دحمره مفاوضات ودواوني أقبل إلا واحد قدم بيا هداد أقبل ويدوا كبربرني يوي يعني مفاوضات ولقى هداد بقشة مفاوضات بعد عيا فلسطين يا إسرائيل مفاوضات كستور دحمره محاكا صباحا هشيس أي تنازلات سمايا فلسطين تو هذا هو وحي صباح إسرائيل فلوم ويدا مركز سواح على مفاوضات هلا عصبونيسيو هي دب الله عصبونيسيو محاكا صباحا شروطاً بي سو حدان كوان با سو تنازله والله سو صحيحة ويفلين ويدا إسرائيل هذا با ليدا مفاوضات صدحات مفاوضات با صعدة كو كستوب بلا مانا وتنازلات هاتتن مقالة دوا حصار بي كجرتا مفاوضات بانا بلا مي مفاوضات كي يودرتي بغر وفيرسو بغر كان هلكا اي جوجتو سي تاريخي هندو ليي labadii nin aynu lahayn hoolaakay hoosta kaga xidhnaayeen ayuu wuxuu u diray inay noqdaan mufaawadiinta dhankiisa ka socda waa kuma waa mu'ayidiin al-alqami iyo batriirikii mekako la yiraahdo kaniisadii kristanka ee joogtay Baghdad batriirigeedii mekako iyo mu'ayidiin al-alqami labadaas la diray inay mufaawadaadka hoolaaka la soo galaan هلاك لبدودي markay u yimaadeen wuxuu dhageystaa adiga waxaan ku ballan qaadayaa wax masiixiya inaan la taaban kaniisadaha waxa goor inay ku badbaadaan wixii lagu siin karaan lagu siiyo adna waxaan ku ballan qaadayaa Baghdad maalintan gacanta ku dhigo majliska xukuumaya ayaan madax kaaga dhigaya Baghdad imika ra'iisul wasaarad ka tahay marka Kanada talin doonaba meesha qabsanaya maxaa tala amarka dawladda waxa korkeeda saaran horta labadii nin ee dagaalamay iyo kooxdoodii in la keeno shayga koowaad mujaahidiin aybak iyo Sulaymaan labadaas dawa mutatarrifiin iyagu ahlu tatarruf ee dunida laga ma ogola labadaasi waa inay soo xira galaan ثانيا natiijadii mufaawadaadku waxay noqotay markaa dagaalku oo la joojiyo nabadgelyo dhacda هولاكو أو أقول إن أنتي سينو بحية أو بقرك إن أنكيسو جورسده إن بقرك المستعصم بالله كرسي كان دينا كودين يا أبو يري غير بغداد وأمانسي وحني ووحي وهاص ولا قلي وحي أنا دين شيء جاي هوري ووحي وهاص ولا قلي لبضنين لكن مفاوضكم حقوق جينا يا بقرطوية دي وح الله كاني نكى هشيس بان ولا قلي هشيسكم حقوق جاية دجال كين لتشوتشيو نبض لغاته هولاكو إن أنتيسه إن كاجا لو جوريو سين نبض الله أتكي يريركو حدده كرسي بقرطوية ده إن هذيك اللجود ده ياد بقر كاجا هاته غير بغدادنا أمان إن لصيو أنت سوى أنت يجو هليان شروطك وحدنا محيطي لكن بالشروط وين شروط تنفذ لسان أنت صار أنا قبل يبيده هولاكو لكن شروطا بفعل لسان وما هي شروطه وحلالية وحق العادة بغداد كي يلا وين الدمسان شرطك كواد شرطك اللي بعد واحد وحلالية وح خنادق جودات كالرفيسية ده الذين ردن وين للدمية شرطك اللي بعد واحد وحي هوبا إن لسوديبه صدحات وحي هوبا إن لديبه شرطك أفراد قدام بيانا وحويان إن أقبشان دولة دجود تتارك قرام عاصمة دو تهي هنا هوست مادان رعية هنا كبيرتان انت صدا نقو وحكا لو مصر عنه ولا كاله
annagu waxaan u soconnaa inaanu cadaaladda sugno xorriyadda iyo ammaanka inaanu ilaalinno qaabkaasaan u soconnaa taariikhdu waxaad mooddaa un beyj horoo jiray in dib loo qoro ma aha taariikhda bini aadamku waxa taariikhdan bini aadamku in aadamu weeyaan waxaan dunida jooga waa aadam iyo intuu dhalay god aan hore loogu soo jabini ma jiro ilaa iyo maanta godadka jooga haddaad taariikhda dib u akhrido waxaan tan u akhrinayaaba ma aha inaan idin raaxeeyo oo muslim baaba ayaa idinka raaxeeyo laakiin waa inaan idin tusiyo taariikhdu beyjaj la rogo inteeda badan inay tahay ciraaq soo maydan maqlaynin waxaa lagu qaaday hubka in laga mamnuuco hubkeeda inay gubto United Nationka in loo soo diro waxa hub leedahay inay gubto cunaqabateyn lagu sameeyaan kan lagu sameeyo muqaabilu dalik waa maxay nabadgelya la idin siinaya kadibna in xilfi wadaag maraykan soo samaysto dabeetana biduuni qaanuun in lagu qabsado kullu dalik taariikhda bini aadamku baqdaad suquudkeedii shalay ahaa iyo kii dhowr boqoloo sannadood 800 sano ku dhow ama 900 sano ka hor dhacay waa isku waji eegin 800 sannadood beejku dib unbuu isu soo rogay boqorku si aanu mufaawadaadkaasi talakuba uga samayninna garaacistaa lagu bilaaba in magaalada garaacistu ay ku socoto bishii safar la odhan jiray bilowgeedii baa waxaa la bilaabay 4 maalmood in garaacis xooga lagu sameeyo magaalada ibnu kathiir wuxuu sheegayaa daartii boqortooyada square laga qabtay buu yidhi dabeetana gamuunyahanadii baa gamuunka ku ganay gamuunku waa leebka waa dee waxyaabihii la isku garaaci jiray madaaficda ugu waaweyn baa lagu ganay taariikhyahanadu waxay sheegaan boqorku wakhtigaasi jaariyadihiisii mid ka mid ah cayaaraysay inan carafa la yidhaahdaa hortiisa ka cayaaraysay oo ahaa jaariyaadkii mulkul yamiinka lagu haystay joogay ayaa cayaaraysay taariikhyahanadu waxay sheegaan carafo boodboodaysa ayaa gamuun ku dhacay markaasuu boqorkii naxay hortiisa markay inantiina ku dhacday ayuu boqorkii naxay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdaan gamuunka lagu dhuftay waxay ugu soo qoreen bay yidhaaheen weedh ah idaa araada allaahu infaada qadaa'ihi wa qadarihi adhaba min dawi lcuquuli cuquulahum baa ku qorayd bay yidhaahdeen ilaahay hadduu doonayo arrinkiisa inuu fuliyo kuwa caqliga la unbaa caqliga laga qaadaa waxba kala garan waaya dabeetana wixii la rabaa fula gamuun ay ku qoran tahay inantaasi ku dhimatay bay yidhaahdeen boqorku markaasuu kabashkabashta bilaabo wuxuu yidhi daahiyada guriga ha lagu badiyo waxyaabaha kana aanu gamuunku soo maraynin daaqadaha in la adkeeyo ayaa la bilaaba arrintii meel adag bay maraysaa alcalqami mu'ayyidiin alcalqami wuxuu yidhi mufaawadaadka aan ku noqdo mar labaad ma bilaabaa boqorku wuxuu yidhi haya adigu tag mufaawadaadka adigu iga aqbal wuxuu yimi holaako mar kale mufaawadaad baan rabnaa inaan kula galno ma saas ahaa wuxuu yidhi keligaa kuma qaabili karo ee waxaan rabaa markaynu wada hadlayno inaad wadato magaalada culamadeedii rijaalul acmaalkeedii dadkeedii wajahadee la yaqaanay magaalada dadkii caqliga u ahaa waa inay kula socdaan haddaad doonayso inaan heshiis kula galo weliba boqorku waa inuu ku jiraa wuu soo noqday wuxuu yidhi ninkii holaako wuxuu aqbalay inaynu wada hadal samayno laakiin waxaa laygu xidhay inaynu xaashiyadeenna o dhan intaynu kaxaysanno inaynu u tagno waa yahay baa la yidhi waxaa la soo kaxeeyey 700 oo ka mid ah magaalada baqdaad dadkii magaca iyo maamuuska ku lahaaya ee culamo leh ee tujaar leh ee waxgarad leh 700 oo nin oo ka mid ah waxaa la soo kaxeeyey qoyskii boqortooyada 17 ka mid ah dabeetana wuxuu yidhi holaako markii wixiiba soo baxeen waan idin kala dambaysiinaya kow boqorka iyo 17ka qoyskiisa ahi ama 17 idinka mid ah iyo boqorkoo quri ha yimaadaan inta kale xagga dambe ha ku sugto waa yahay baa la yidhi boqorkii iyo 17 baa u tegey 700 kale wuxuu yidhi horta iyaga madaxa ka jara 700 kale madaxa laga jaray boqorka waxba looma sheegin
ciidankii raggii uu halkan kaga yimi iyaga wuxuu yidhi iga qariya 17 uu yimina wuxuu yidhi khaliifada boqorka waxa laga rabaa inaad hadda amar bixiso reer Baghdad inay hub ka dhigaan boqorku haatan war uma yaalo waa inuu amarka bixiyaa ka labaad wuxuu yidhi boqorkana ha la xidho boqorkiina waa la xidhxidha maxaa loo xidhxidhanayaa adigu waa inaad sheegtaa baa la yidhi qasnadihii dawladda iyo meelihii waxyaaleen oo dhan si loo heli karo boqorkoo meesha taagan ayuu yidhi labadiisa inan soo qabto horta saddex inana uu dhalay axmed abulcabaas iyo cabdiraxmaan abulfadal ayuu yidhi ku hor gowraca isagoo taagan boqorkoo meesha taagan ayaa labadiisii wiila waaweynaa lagu hor gowracay kii saddexaad wiil saddexaad uu dhalo mubaarak abulmunaaqib la odhan jiray isaga wuxuu yidhi xidhxidha maxbuus ka dhiga saddexda hablood ay boqorka walaalayiinna ku dara buu yidhi halkaa markay joogto waxaa la yidhi ha loo yeedho wixii Baghdad rag waaweyn ku hadhay ee culammadii ahlu sunna ah waa loo yeedhay xabaalaha la dulgooyaa la yidho dhammaantood ha la laayo iyaga iyo dumarkoodaba waa la laayay ragga la laynaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekhii magaalada uu dhalay ibn aljawsi inankiisiiya الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي وشيخ دار الخلافة ولا قورعي شيخ يسدح ويلا ودالي ودا قورعين رجع ماشي اللي قورعي وحكم إذا لبدين إن الدجاليه هنكا مجاهد الدين أيبك يا سليمان شاه إيجانا وحلا هلا قورعو إيانا ولا قورعي وحلا قورعي دقي سو تربية خلافة صدر الدين علي بن النيار نين لا يراهضه dabeetana waxaa la yidhaha lagu xigsiiyo a'immada masaajidda khutabada xamalada qur-aanka waxaasoo dhan ha la laayo intaaba waxaa la laayay iyada uu boqorku xayi yahay oo weli nool yahay dabeetana ciidankiisii baa meesha lagu fasaxay waxaa la yidhi Baghdad ha la laayo 40 maalmood baa Baghdad wixii ku noolaay oo dhan la gumaadayay waxay yidhahdaan askari baa ku soo baxay 40 carruur oo hooyooyinkood la dilay isna 40kii buu gowracay waxaa la yidhahaa boqorka isaga oo ciidankaa la yidhi kubad ka dhigta harraato ku dhintay baa la yidhi sidii harraati loogu waday taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin isaga cidhibtaa lagu dilay sidii harraati loogu waday ayuu boqorku geeriyooday waxaa ka soo baxay meesha tan maktabaddii ugu weynayd ee dunida ku taallay maktabadda ugu weyn ee dunida ku taalla Baghdad bay ku taallay waa maktabad haaruun rashiid oo asaaskeeda bilaabay 100 iyo dheeraadkii 170 ilaa 193 hijriyadu isagu maamulayay dabeetana waxa yaalay mujalladaadka dunida ugu tirada badan leh maxaad iyada ka sheegaysaa Trablus tii Lebanon ee ay gubeen waxa yaalay baa la yidhaha 3 milyan oo mujallad 3 milyan oo volume maxaad u malaynaysaa tii Baghdad iyadoo Baghdad maktabadda qori waxay lahayd dad nusaakhiin oo madbacadima jirina wax qora dad kutubta dadka u dhiiba dad mutarjimiin oo afafka kale ka tarjuma researchers degan meesha غرف wax lagu akhristo meelo wax la isugu dhigo xalaqaad ama meelo nadawaad cilmiya lagu qabto lagu niqaasho meelo ardadu ay seexdaan waa akbar waa maktabadii dunida u weynayd oo uu yaalo aqoonta dunida dhammaanteed af kasta ku qoran ha noqdo afkii yunaanta greega kii siryaaniga ahaa kii hindiga ahaa kii sakritiga ahaa farisiga laatiiniga kullu luqaat way yaaleen may odhanin maktabadda rara oo qaraa qorum geeya lama odhane waxa la yidhi rara oo webiga dajla ku gura webiga dajla ayaa aqoontii reer nebi aadam uu kala dhexlayay maaha aqoontii muslimiinta qura waa maca greegii hore ma wixii bini aadam qoray muslimka waqtigan waxay lahaan jireen rag aqoon-yahanoo dunida loo diro oo shaqadoodu ay tahay meel kitaab dunida yaalluun inay arkaan soo qoraan kitaab kasta ciddii haysta waa laga iibsanayay waana la keenayay kitaab kasta waa la tarjumayay ayu cilmi ha ku saabsanaado maktabaddii intaa leekayd waxaa la raaciyey webiga dajla waxay yidhaahdaan mudduu webigu khad dareerayay madoobaaday khadkii bugaagtan lagu guray fardaha lagaga tallaabiyey bay yidhahdaan webiga sidii maktabadda tan loogu guray 40 maalmood baa magaalada dadkii la xaaqayay
waxay taariikhyahanadu sheegaan 1 milyan oo qof dad ka badan baa la dilay taariikhyadana qaar baa 2 milyan yidhaahda waxay dhahdeen guryahu masiibku waa majaroorka halkan biyuhu ay ka dareeraan dadku markay cararaan ay guryaha saqaf ka fuulaan baa laga daba tegaysaa loo laynayo guryaha magaaladu dhiig bini aadan bay daroorayeen baa la yidhaahdaa dumarkii iyo carruurtii xagga sare kore iyo wixii sidii loo gowracayay guryihii baqdaad ku yaallay bay yidhaahaan sida roobka dhiig bay da'ayeen waxaa la tilmaamaa markii uu baqay xanuunna dilaaceen 40 maalmood kadib 40 maalmood wuxuu amray wax dhaqaaqa inaan la sii daynin aduu magaalo 3 milyan oo qof degantay oo intaasoo kunoo ciidan soo galeen oo qaradkuna yahay wax nool inaan lagaga tegin qiyaasun waxa ka soo baxaya oo maalin iyo 2 iyo 3 aan inay 40 cashaa 40 markii lagu waday ayuu ciidamadiisii wuxuu uga baqay xanuunadu inay laayaan markaasuu yidhi ka soo baxa ibnu kathiir wuxuu leeyahay dadkii taacunni iyo balaaya ka dilaacay waman najaa min aطacni lam yanju min aطaacuun buu leeyahay ciddii birta ka nabad gashay daacuunkii baanay ka nabadgelin buu leeyahy baqdaad intii hadhayna kaloora laayey daacuun baa laayey goorahan ba waa la eg fadhiyaan u malaynayaa marka waxaan ku gebagabaynayaa uun taariikhda maantu waxaan joogaa weji ah baqdaad oo dunida taariikhdeedii ka baxday waxay cilmi lahayd waxay culamo lahayd waxay dad lahayd waxay boqortooyo lahayd dhammaanteed la laayay xoogna aan lagu diline talaxumo muslim ku dhimatay muslim isqaybqaybiyey oo iyagu col ah heshiisna iyo xilfi wadaag la gelaya cidda kale midba uu ka kale kula duulayo taariikhda dhaxalkeedu waa kaa wakhti kastoo ay saasi dhacdana ma aha inaan dadkan ku jirin dad cubaadi ama qaar ilaahay barya ama qaar salaad badan ama qaar caqiido wanaagsan xataa boqorkaa la leeyahay baa caqiido fiicnaa laakiin caqiido fiicni quri waxba ma tarayso haddaanay ummaddu wixii la faray aanay samaynin dhammaanteed haddaanay diyaargarowgii la faray aanay samaynin ummad kasta oo muslima oo iyadu isku jeesata oo istunta waxaa abaalmarkeedu yahay caasimadaheeda in gaala ka taliso waana inta maanta dunida ka taagan والله أعلم بالله التوفيق